saacadii markay abaare ahayd 8 oo wax yar dhiman ayaan guriga ka soo baxay bajaaj ka soo raacay daljirka dahsoon inta aan la gaarin af ciidanka joogto ayaa qabsaday xilligaas waxaan xirnaa indha shareer iyo xijaab markaas wuxuu yiri xijaabka iska qaad because security-ga waxay bilaabeen hadda in dadka indha shareerka ay ka furaan soo indha shareerkii iska furay markuu arkay waxa igu yaalaan shaarbo iyo waxa igu yaalaan ilaahay ii dhaliyay dadana wuxuu yiri soo deg waa soo degay bajaajtii ka soo degay wuxuu yiri waa laga shakiyay adig wuxuu la hadlay anigoo isla markaas meesha la taagan oo ciidanka la taagan yihiin taliyihiisi oo yiri taliye waxaan haynaa nin indha shareer soo xirtay xijaab taliye markuu wuxuu yiri waa inaan soo saartaa bajaaj meesha marayso askarina soo raacay askariga la raaciyay bajaaj kala la saaray bajaajtii hor waa liga dajiyay lacagtii u tuureen sidii markaas saldhiga liigu geeyay saldhigii markaan tagay taliyihii iyo dadkii askartii oo informationkeegii akhbaarteedii hayaan ayaa meesha ugu tagay taliyihii ay salaamay wuxuu yiri assalaamu calaykum magaca Faisal dhahayaan ku yiri wuxuu yiri tan waa diyaas baro oo nin ah oo diyaarsan waayo yiri markaas wuxuu yiri nin waayo bay hal check-in u direena gabadh oo markaasi booliis ah ayuu markaas oo laakiin booliiskii direeskii wixii ka muuqanin oo laakiin booliis oo liigu sheegay ayaa lii wareejiyay markaas loo dhahay soo bar gabadhii welina indha shareerkii ma wadatid markaa wajiga waa furan yahay indha shareerkii meeshii liigu furay ayaan markaas gacanta ku qabsadaba marka liiga qaadaba markaas ka bacdi ma xirnaan marka Faisada hadda aan aragnaad ahayd markaa Faisada hadda aragtid Ibrahim oo ayaan ahay markaas kadib waxaa dhacday markaas in aan gabadhii liigu wareejiyo gabadhii markii liigu wareejiyo ay ugu bilaawdo handadaad ay ugu bilaawdo inay cayso ay shaqadeedu ay ahayn inay cayso iyo aflagaadis ay tahay inay aniga baarto kaliya loo diray waxay ay gelisay qol oo ay markaas rabtay inay baaritaan ugu sameeyso qolkan waxaa jiifeen 5 gabdhood oo aan isleeyahay shaqaday markaas ka dageen adiga salaad subax oo meeshii ku hurdaayay oo joodariyaal ay yeeleen markii gabdhihii kicisay waxay tiri qolka ka bax qofkana baaraya oo nin oo lagu soo shikiyay dan gabadhii waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri adiga ani dharka siibi maayo waxa xaq u leedahay in ay baartid uma lihid xaq in aniga dharka iga siibtid sharcigana ma dhigay dan gabadhii madaxii iyo jirkii inta iga tataabanaysa ayaa kuwii message jiifeen hadlayaan mida waxay tiri marka waa hal sano waxay haystaa tababar oo adag ay haystaa gabadhan waa laga dareemaa inay ciidan tahay oo qolooyinkaas u soo shaqeysay mid kala soo bad waxay tiri ninka cilaana u marsanay balka waran gabadhii waa baartay waxa iga helin timaheegii taabatay timaheegii markay taabatay waxay aragtay timaheegii inay dhaadheer yihiin markaas waxay tiri in gabadhu timee leedahay qofkana ninka lagu sheegay timuu leeyahay gabdhiya waxay yiraahdeen hadda ka hor nina qabanay timuu lahay timaha waxba u raacinay si baarbaar gabadhii intay baarbaaris taliyaha banaanku istaagan yahay oo albaabka banaanka qolka lagu baarayo taliyaha markuu wuxuu yiri wax ma ka heshay markaas gabadhu tiri may taliya wali waxaan ku haynaa baaritaan baaritaankaas lagu hayaa muxuu yahay waqtigaas dheer qaadanaya waxa gabdhihii because gabadhii ibaareysay ayaa waxa qalqal geliyeen 5 kale oo meesha jiiftay oo dhahayaan gabadhan gabar maahan ha sii deynin nin waa u egtahay ha sii deynin marka intaas murankii iyo wixii iyo aflagaadadii waxay qaadatay in ay markaas qaadato waqti dheer in lagu baaro markii dabacdi waa soo baxay gabadhii waxay isku dayday in ay wareysato waxaan ku yiraahday baaritaan shaqo ku leedahay hadii wareysi noqoto OB-ga in lagu qoro waaye OB-ga haligeey taliya oo maad waxay tiri gabadhan wareysi way diiday waa in markaasi wareysiga adiga ka qaad gabadha laakiin aniga so far wax ma ku helin marka kadib taliyihii qolka OB-ga ila galay qolkii OB-ga ugu wareystay wuxuu yiri xagee ka shaqeysaa waxaan u sheegay in aniga xuquuqda aadanaha ka shaqeeyo waxaan kale u sheegay in xafiiskeena meesha ku yaalo dan wuxuu yiri waa in la helaa dadkii kula shaqeynayay wax kamid ah inaan wacatid oo yimaadaan meeshan ee dhahaan markaasi gabadhan waa gabar marka ka bacdi odayaha soo galay ilaaha markiisa oo booliis ah oo way arag leh soo galay oo fiiriyay inta ninkan taliyaha wada hadleeno dadna wuxuu ku yiri war gabadhan way cadahayna gabar tahay ee bilaash waa u gafteena gabadhan muxuu ahay gaftira markaas waxaan ku yiri waa maqlaysaa markaas wuxuu yiri adiga mas'uul ma ka tahay hadii la fasaxo hadii ay qaraxdo ama hadii kale wax kala sameeyso hadhow mas'uuliyadeed ma qaadan ninkii lagu dhahay ninkii wuxuu yiri gabadhan wax ma sameynaysa iska sii daay waxna waa ku laadin waxa ku soo qabateen marka ninkii waxaan ku dhahay iska baxay markaas waxaan dhahay baxay gaf weyn la geystay Faisal sidee lagu soo daayay markii dambe uga soo baxday saldhiga waxa lagu soo daayay ninkaas oo waayeelka booliska ahay oo hadlay ayaa lagu soo fasaxay maahan saacadan waa xirnaan lahaa waayahay dhacdadan oo kale horay ma ula kulantay magaalada dhacdadan wali xagga booliska wali kala ma kulmin laakiin waxa jira marka lugeenayo kala xamarweyne ama meelaha oo publica marka lugeenayo dad inay istaajiyaan oo garaneen ay dhahaan alla gabadha sharbeel leedahay inay igu fuduliyaan oo kale ama ay dhahaan waa arkay laakiin xag heer dawladeed inay waxaas iga soo gaaraan dhowr mar aan safray waligeey kala ma kulmin